السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلها أنت ملك صندوق دعوانا سنة هلكني وهم دودا أنا وحنا عبد الرحمن وحرجيني ملك سته وذا دعوانا سنة عافية ما تغبطه هدي أن رسعتي واد ما هتصنت هاي إبراهيم شنو شرقري صاحب بدأ يا صومالي با لو ذاك وضدي بقول حكم بنصارنا يقولين يحردين وحيرون سدا إنه تخان تخية هدي أد نقول عصبت هينا نقول صوبير أو channel سبسكرايب نصر برت فيسبوك هذا دعوانا يسو فلو نصور ده ونصور si aynu masaalixda ummadeena Soomaaliyeed aynu isula qabanno waa cashirkeennii taxanaha ee ku saabsan dhaqankeena sooyaalka ee Soomaaliyeed ee xeer ciise oo dhawaan ay hay'adda UNESCO ee dhaqamada u qaabilsan hay'adda United Nations ama qaramada midoobay ay u aqoonsatay inuu yahay nidaam dad lagu maamuli karayo waa xeer Soomaaliyeed waa dhaqankeennii oo diinteena ku qotoma oo aynu ku soo dhaqmi jirnay ilaa haddana baaqi ah ujeedooyinkan ka leeyahay waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay baraarugaan iyo dadka wadaniga ee rajadoodu ay dhimatay iyo dadka Soomaalinimada jecel in ay baraarugaan xeerkan waxaynu ka faa'iiday doonaa Soomaali mid ah sida ay ku iman karayso qabyaaladuna ay ku dhamaan karayso dadkeenuna u sinaan karayo sida Allah subhanahu wa ta'ala uu inoo simay xagga cadaaladda maanta cashirkeena sagaalaad waxaynu ku qaadan doonaa dhagalayda usluubta xeerka usluubta xeerka ayaynu qaadan doonaa waa cashir yar oo kooban laakiin faa'iidada ku jirta ay aad u fara badan tahay waa hagaag xeerkan iyo dhaqankeenan sooyaalka ah oo run ahaantii marka aad daristo ama aad dhuuxdo amaba ugu yaraanba dhaqanka dadka ciisaha ee hadda jooga beerta aad joogto qof ciisa waa laga helayaa bal la sheekayso bal weydii dhaqanka dadka xiriirka dariska waxa weydii aad baynu u kala fognahay laakiin ayana waa Soomaalida asalka ahayd inana ama Soomaalida kalena waynu haboonay wadadii baan ka leexanay Soomaalidii waynu nahay laakiin wadadii baynu ka leexanay qofku markuu wadada ka leexdana qof habaabay meeshuu higsaday heerkoodii bay ula haboontay Soomaa uu u socdaa yaa qof habaabay meeshii walba saa u kacay baa ula haboonayd de meeshuu u socdo uu isla qumayay qof markuu sareeshan yahay habawga yahay bartaas heerka u malinaya malahaas iyo yuhuntaas buu ku socdaa marka waynu habawsanahay dhaqankeena dib ugu soo noqon okay asluubta xeerka waxaa la yiri afar waa lagu faanaa ee lagama faano afar shay waa lagu faanaa ee lagama faano bal afarta lagu faanaynu baranaynaa haddana waxaynu eegaynaa innaga Soomaalidu afartan ma ku faanaa mise waynu ka faanaa markaynu runta iyo xaqiiqada aynu ka hadlayno kow dalkaaga waa lagu faanaayo lagama faano dalka adigu aad leedahay id ka soo jeedo ee Ilaahay ku siiyay waa lagu faanaa ee lagama faano xigmadii doodaan Allah u naxariistay muxuu yiraahday war qofkii holeele ka taga hodanka ciidiisa hay talashka oo maganta u yahay abidka hooseyn qofka liita ee bilaa dhaqanka ee bilaa diinta ah ee laakiin wadankiisi aad ugu tagtay adaa ka hooseeya cilmiga doonta aqoon waxa doonta haw asagu waa wadani meesha aad joogto adiga baa ka hooseeya asaga baa ka sareeya waa xigmo Allah u naxariistay macalinoodaan number 2 dadkaaga waa lagu faanaayo lagama faano adiga dadkaaga waa lagu faanaayo lagama faano haddaba inaga Soomaalida oo aan ciisuhu ku jirin dadkeena miyaynu ku faanaa mise waynu ka faanaa inaga qaar midga ka dhignay qaar tumaala ka dhignay qaar laangaab ka dhignay qaar jareer ka dhignay qaar timaada ka dhignay qaar laga roona ka dhignay qaar inaga ka faanayna dadkeeni inaga ka faanayna qofkiisi ka faanay muxuu ku faanay marka dad kale ku faana American tagay waanu tahriibay darbigan ka booday Pacifican jooga Malaysian jooga Australian jooga New Zealand baan jooga ya Europe baan jooga German baan jooga waxayba inala tahay inaguna faanayno inaynu dadka wax dheer naayba inala tahay dadka waxba ma dheerine
ummadaadii baad mataqaanaa ka faanaysaa oo ummado kale yaad ku faanaysaa yaa baasaboor baa qabtaa aniga Mareykan oo gorgorkan wataa dee gorgorkaad wata yaale dalkaagiiba gorgor iyo mandad iyo xuunshaba way joogeen yaa iskale adeer dhaqankaaga dib ugu soo noqo adiga oo u tixraacaya buugan iyo buugaagta la midka ah adiga oo u raacaya dhaqanka soo jireenka ee dadkeena ay inoo hayeen weli ee ciise kaliya waxaa nagu filan dadka reer ciise dhaqanka ay hadda maanta iyagu si yihiin baaba inagu filanba intaas ay nagu filanba maxaan idiin sheegay dhul inayna kala lahayn maxaan idiin sheegay jadiinku inuu ka dhaxeeyo maxaan idiin sheegay jalku inuu ka dhaxeeyo maxaan idiin sheegay xeerkan iyo sharcigan qof kasta inuu ka weyn yahay maxaan idiin sheegay inayna isdilin maxaan idiin sheegay inayna isku duulin maxaan idiin sheegay inaan la iska seexanin maxaan idiin sheegay inaan gabadh laga oohinin maxaan idiin sheegay inaan beenta la sheegin maxaan idiin sheegay inaan waxba la xadin intaasoo wax hadday dhacaan inay ciqaabi ka laazimaysa wala u hoggaansan yahay kuna gowracaya war maxaa ka wanaagsan intaan kuu sheegayaba qofka ciise ee kuu dhow weydii wa jirtaa ku dhe dadka reer ciise saan ma u dhaqmaandhe dhul ma kala leeyihiin laandheere yaa ugu laandheeraysan weydii way kula yaabayaan war nin ciisii nin qof ciisii qof ciisaa caarad ma dheera caarad ma dheera waa hagaag qodobka saddexaad ee lagu faano dhaqankaaga waa lagu faanaayoo lagama faano haye dhaqankeena miyaynu ku faanaa inagu mise waynu ka faanaa dadka reer ciise way ku faanaandi dunida meel alla meeshay ka joogaanba markay dabaaldegayaan golxobtoodii iyo go-oodii caddaa iyo bay sitaan go-oodii caddaa iyo golxobtoodii iyo gundhigoodii bay sitaan way ku faanayaan innaga laakiin way adag tahay inaan ku faano maalin laga yaabo inaynu kowda luuliyi iyo sanad guurooyinkii waxaynan dhigayno bay dadka qaarkii dhaqankii hiddaha marya loo yaqaano oo daldaliigya leh bay soo xidhaan ma xidhanno waan ka faannaa suudadka madoobe iyo sarwaaladaasi shaatiyaashaasaan qabnaayo stylekan raacnaa maxaa cusub sanadkan maxaa cusub adigu waxaa cusub ee styleka ee qofka fashionka uu fakeray ee jaamacadda ka baxay designerka intaad iska dayso dhaqankaaga haddaad haysato asagaasaad modernization ku samaynaysaa oo horumarinaysaa oo kale wax cusub ku daraysaa adoo weli dhaqankaagii haysta qaybta afraad ee u dambaysa diintaada waa lagu faanaya lagama faano diinta waynu u horreysiinaynaa afarta qodob diintaynu u horreysiinaynaa waa lagu faanaa diintaada lagama faano innagu maanta maxaynu samaynaa diinta miyayna ku faanaa maya kuma faanayde diinta qoladii suuro xumaysay ee gaaladu argixisa ula baxday baynu uga cararnay gaarka xiir ka fogow culamada tuur astaan diimeed yaan lagu arkin ka fako baynu ku jiraa soomaali dib u soo noqo afartan shay waa afartan shay aynu ka habownay dadka reer ciisena ay hayaan reer ciise dhaqankaa dhan ee meeshaa ku qoran ee degan diinta islaamku sida ugu dulqoto maaha ku sargo-an yahay wuu ku sargo-an yahay kuwa diidan ee odhanaya xeer markaad maqlaanba ereygaaba dhahaya kitaabka ilaahay baa yaallay xeerku muxuu yahay waa kuwa aan kitaab ilaahayna dan u hayn ummadana aan dan u haynin sidaana ay ugu dararsan tahay ama waa jaahil jibaysan weeyaan labada mid waa afartan aan soo sheegnay ninka xumaan ku sheega ee yidhaah dalkeennu ama dalkeenaba ama dhaqankeenaba ama dadka ah dalkeenna ama diinteenna ama dhaqankeenna qofkii intaas xumaan ku sheegay ee diinteenna iyo diinta waxaa caaya xeerka ayaa la horkeenayaa waa lasoo horfadhiisinayaa rasuulka iyo diinta iyo rabbi alla subxaana watacaala ciddii cayda waa lasoo horfadhiisinayaa shareecada islaamka dhaqanka dadka dalka qofkii caaya waa lasoo horfadhiisinayaa waxaa afartaa shay ruuxa lagu helo ee markhaati lagu helo golaha ayaa la keenayaa guddidaa la horkeenayaa kowka ah dadka uu caayay sababtoo ah guddidu maxay tahay waa ahlulxalli waalcaqdi kuwa waxna fura waxna xidha kuwa waxna xalliya waxna toosiya kuwa taladu ka goodo taladana loo dhiibto kuwa ayaa ka mida oo dadkii ah oo dalkii matala
oo diintii ku dhaqmayo haysta oo u taagan oo dhaqankiina dee matalo meesha u fadhiya kuwa ayuu caayay oo ku xadgudbay waana la ciqaabayaa xeerka markii la hor keenana halka xeerka ayaa lagu ciqaabayaa wixii uu goosto ayaana loo goynayaa haddaba Soomaalida sooyaalkoodii iyo dhaqankoodii wanaagsanaa ayay ka leexdeen maadaama dhaqankeennii wanaagsan aanu ka leexnay waynu habownay markaan habownayna hawdka baynu jimaaxaynaa taasaa marka wareerka iyo taxayurka iyo dawlad la'aanta iyo qabyaaladda iyo laandheeranimada iyo laangaabnimada inoogu wacan dadkan reer ciise kama jiraan waxaas kuwa halkaa iyo deegaanka Soomaalida ka mid ah Sitina ma yaqaanaan ciise waa ciise kuwa Jabuutina ma yaqaanaan ciisaha Jabuuti iyo ciisaha City iyo ciisaha Awdal meesha isku arkaan ba ciise waa ciise xeerka baana ka dhaxeeya dhulkuna waa ka dhaxeeya dadkuna waa ka dhaxeeya dalkuna waa ka dhaxeeya waxaan kala qayday waa maxay waa gumaysiga Jabuuti sameeyay ee deegaanka Soomaalida iyo halkaas sameeyay xadka Ethiopia inuu xayndaamay ee Somaliland sameeyay ee British Somaliland ka dhigay ee Soomaaliya Southern Soomaaliya ka dhigay ee NFD ka dhigay mataqaana Kenya ka dhigay gumaysiga oodaha uu dhigay asiyaduna jirin iyo dhaqankan iyo xeerkan jiray Soomaalida kale dhaqamo noocan oo kale taa way samaysteen laakiin way ka tageen wuu baaba'ay 600 oo sano ayay hayaan taa ayaa maanta waxyaabaha ugu wanaagsan ee hayaan waa in dadkoodu mid yahay aynan aqoonin nasab iyo midyaan iyo wax la mid midna aynan aqoonin innaguna 9 ka saynu isu kala fogeynayno baa labada wiil ee wada dhalatay aabba wada dhalay bahbay ku kala tagayaan innaga bahada bay ku kala tagayaanoo hooyadii waagii lala guursaday ee masayrtay cuqdadii oo ku dhashay iyo inanka walaalkiisa u qaba kuna fogeynaya waxna naga ma dhaxayaan oo leeyahay war waxa soo dhan maxaa laga bixi karaa waxa laga bixi karaa Soomaali saxar ma dheero in la yiraahdo sida ciise nin ciise qof ciise caarad ma dheero Soomaali qof Soomaaliya saxar ma dheera sida hal la yiraahdo hana la soo noqdo qaybtii 9aad ayaan inta ku joojin doonaa intaynu qaybta 10aad ku kulmi doono waa anigu Cabdiraxmaan oo idin la sidaayay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh